waxaan ku wadanki waa Soomaaliland waxaan ku waa nabadii waa jaran barwaan halkay joogna waa halkani waa damala xagar dagaalka ka socda degmada Dahar ayaa caawa galay xaalad ka sii daran sidii hore qasaaraha dhimashada ayaa kor u dhaafo 10 dhaawaca ayaana sidoo kale cagacagaynaya ku dhawaad sodomeeyo waxaan soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay dhinacyada oo gurmadii kala helaya xilli dadkii degmadaasi gabi ahaan ay ka qaxeen magaalada ayaana caawa haawanaysa iyadoo waxa kaliya ee la maqlaya ay yihiin daryanka rasaas labada dhinac ay isweydaarsanayaan maxaa ka jira in dhaawacyada iyo dhimashada qasaaraha ka dhashay halkan taliyaal magac laha ay ku jireen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda ayaan saaxiibayaal soo gudbinaynaa ciidanka beesha warsangeli oo soo bandhiga gaarigaas cabdibilaha ah iyagoo sheegay inay ka qabsadeen ciidamadii Puntland ee degmada maanta yimid waxaan soo gudbinaynaa xogta arrimahan la xiriira Puntland oo iyana ka hadasha dagaalka sheegtayna in uu abaabulayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh oo daarood markan qore dable isugu dhiiba sida ay leeyihiin sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa waxgaradkii beesha Dubays ayaa war culus ka soo saaray waxa ka socda degmada Dahar iyagoo oo yiri sidan dagaalka weerarka ee lagu qaaday degmada Dahar dad maata ah oo aan waxba galabsan duulaan loo weeraro sabab ay u kasbadeen iyo dariiq loo maro aan la garanayn oo lagu weeraray baanu cambaaraynayna deni uu ku soo qaaday mas'uuliyadda wixii halka ka dhacay deni baa laga xisaabtamayaa qaadi doona ciidamada beelaha hadda dagaalka lagu soo qaaday cilmiska joogana waxaan leenahay si degdeg ah uga soo bixin shirka jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay cambaarayn aanu cambaaraynayno madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo u bareeray inuu dhaqanka iyo siyaasadda labadaba waa ogeysiinaynaa beelaha deriska inuu saaka ciidan BF iyo cid wehelisa iyo daraawiishtii uu isagu u shaqayn jiray inuu u adeegsaday degmada Dahar oo dad maataa joogo oo nooc waliba joogo in khasaare weyn ka dhacay oo labada dhinacbana ay xaafadaha tahay wax alla wixii meesha ka jira waxaanu kala xisaabtami doonaa Saciid Cabdullaahi Deni dhaqanka beeshiisuna ha noo tixgeliso ha ogaato si guud xaaladda iyo xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka socda ayaan saaxiibayaal idin la wadaagaynaa laakiin ugu horeyntii adiga sidee ay arrintan kula muuqataa waxa Dahar ka socda ma ahayd wax la sii filayay isla markaana ay ahayd in mar hore laga sii baaraandego inta xiisadda ay gaaraysa gacan ka hadal maxaa saxal ku yahay eedda loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ee ah inuu daarood qore dable isugu dhiibay isla markaana dhexdooda dagaal ka horiya masaxba mise waa eed si gaara dana gaara dad kale ay ugu jeedinayaan hogaamiyaha Soomaaliya aragtidaada reeb fariinta meel dheer gaarsii halkan ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega ah yaa qaadaya mas'uuliyadda waxa ka socda Dahar iyo dhiiga daadanaya iyo qaxa magaalada iyo rabshadaha ka dhacay aragtidaada reeb muuqaalka meel dheer gaarsii halkan ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega ah aynu ku bilownay saaxiibayaal dagaalka ka socda degmada Dahar ee u dhaxeeya ciidamada beesha warsangeli ee ku dagaalamaya magaca Maakhir iyo sidoo kale ciidamada Puntland ee ah kuwa PMPF-ta ayaa faraha ka baxay iyadoo qasaaraha dhimashada iyo dhaawacu ay aad u kordhayaan xogihii ugu dambeeyay ee hadda soo gaaraya ayaa tilmaamaya in dhimashada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyo dhimashadooda ay yihiin ku dhawaad ilaa iyo 10 ruux qasaaraha dhimashada ayaa gaaray ku dhawaad 10 ruux halka dhaawacuna uu intaa ka badan yahay iyadoo xoguhu ay tilmaamayaan in ka badan 20 ruux dagaalka ilaa iyo hadda ay ku dhaawacmeen waa qasaaraha hordhaca ah ee la soo tabiyay xogaha la helay ayaa tilmaamaya in dagaalku xoogeysay iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee soo baxayna ay tilmaamayaan in dagaalku hadda hakad kooban galay laakiin saacadihii la soo dhaafay hakad uu ku jiray uu daqiiqado ka hor dib u bilowday xoguhu waxay intaa ku darayaan ama dhinacyada marka la fiiriyo qolaba eed ay jeedinaysaa Puntland waxay leedahay waxa ka dagaalamaya Dahar ee ciidamada Puntland ee halka nabadeynta u tagay la dagaalamaya waa ciidamo ay kaabayaan niman maleeshiyada oo soo diray Xasan Sheikh iyo sidoo kale maamulku sheega SSC Qaatuma waa sida hadalka ay u dhigeen waa sida ay sheegtay Puntland maamulku sheega SSC Qaatuma iyo Xasan Sheikh rag uu soo diray ayaa ciidamada Puntland dagaalka kula jira waana iska dhicinayna ay leeyihiin taa cagsigeeda ciidamada beesha warsangeli ayaa soo bandhigay gaarigan iyaga oo leh waxaan qabsanay gaarigan dagaalka ayaan ku qabanay oo Puntland ayaan kala wareegnay ma caday karno in gaarigan ay la wareegeen ciidamada beesha warsangeli Puntland laga qabsaday dhab ahaashiyaha warka laakiin waa ay sheegteen
sidoo kale xogaha waxay tilmaamayaan ilaa iyo hadda waa la soo warinayo in hadda gacan ku haynta degmada inta ugu badan beesha warsangeli ay gacanta ku hayso oo ciidamadii Puntland laga saaray xoguhu sidoo kale waxay sheegayaan in gurmadyo xoog leh labada dhinac ay kala helayaan arrintan oo laga cabsi qaba inay xaaladda ka sii darto dhiig hor lana uu daato dhinaca kale inta ugu badan dadkii deegaanka ayaa ka qaxay magaalada iyagoo daafaha iyo banaanada magaalada tagay si ay uga nabad galaan risaasta iyo hubka ay isweydaarsanayaan labada dhinac hadda waxaa isku hara magaalada ciidamada labada dhinac iyo sidoo kale magaaladii oo haawanaysa nabadayn ayaa dhinacyada kale ama labada dhinac loogu baaqayaa iyadoo loogu baaqayo inay xaaladda hakiyaan xogaha la helo waxa ay tilmaamayaan in sidoo kale Puntland ay markaan diiradda saarayso sidii gacan ku haynta magaalada ay ula wareegi lahayd iyadoo gurmad dirtay halkaana ay ku wajahan yihiin lama oga sida xaaladdu ku dambeyn doonto marka ay halkaa joogto waxaa war degdeg ah soo saaray waxgaradka beesha Dubays oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyadda waxa ka socda dahar uu qaadayo Saciid Cabdullaahi Dani kuna soo duulay deegaankoodii waxayna soo saareen warkan culus saxaafadda tan waa cambaarayn aanu cambaaraynayno dagaalka weerarka ee lagu qaaday degmada Dhahar dad maata ah oo aan waxba galabsan duulaan loo weeraro sabab ay u kasbadeen iyo dariiq loo maro aan la garanayn oo lagu weeraray baanu cambaaraynayna deni uu ku soo qaaday mas'uuliyadda wixii halkaa ka dhacay deni baa lagala xisaabtamayaa qaadi doona ciidamada beelaha hadda dagaalka lagu soo qaaday calmiska joogana waxaan leenahay si degdeg ah uga soo bixin shirka jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay cambaarayn aanu cambaaraynayno madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo u bareeray inuu dhaqanka iyo siyaasadda labadaba waa ogeysiinaynaa beelaha deriska inuu saaka ciidan BMBF iyo cid wehelisa iyo daraawiishtii uu isagu u shaqayn jiray inuu u adeegsaday degmada Dhahar oo dad maataa'i joogo oo nooc waliba joogo in khasaare weyn ka dhacay oo labada dhinacbana ay xaafadaha tahay wax alla wixii meesha ka jira waxaanu kala xisaabtami doonaa Saciid Cabdullaahi Dani dhaqanka beeshiisuna ha noo tixgeliso ha ogaato baqarno iyo Dhahar way saaran yihiin haddii anagu kuma talagelin guriga iyaga iyo gurigiisa midna inaanu bi'ino wixii sabab ah oo meesha ka dhaca mas'uuliyadeeda isaga qaadaya salaamu calaykum kan saxaafaddana waxay ku saabsan tahay waxaanu cambaaraynaa annagoo odayaashii beelaha hadda la sheegayo dagaalka lagu soo qaaday annagoo ah waxaanu cambaaraynaynaa dagaalka halkaa oo ku soo qaaday waxaanu cambaaraynaynaa mas'uuliyadda madaxweyne Deni uu qaatay oo dhibta ah oo uu dabka uu ka shiday dadka deriska iyo ehelka iyo ceel wadaagta iyo caws wadaagta ah dabka uu dhex dhigay aad baan u cambaaraynaynaa mas'uuliyaddan isaga leh waxaanu leenahay dagaalkaas maanta dhacay wuxuu sababsan doonaa wax ka badan hawl ka badan dhimasho badan oo cid walba saamaysa dagaaladu waa dhici jireen laakiin dad aan waxba galabsan in la weeraro dadka aad weerarayso ciidankoodii waa kuwii ku dhintay buuraha calmiskaad waa kuwa hadda dagaalka ku jira iyagii baa la weeraray sabab in loo galay anagu ma garanayno waxaanu cambaaraynaynaa mas'uuliyadda Deni baa iska leh iyo dawladdiisa cid kasta oo dawladda ka tirsan oo tala ku leh mas'uuliyadda ay qaadanaysaa aad baanu cambaaraynaa waanuna ka xunnahay aanu cambaaraynaa shirkan jaraa'id beladu waa hurdaan ninkii kiciya dadkuna waa qabaayilo wadayaal oo wax isku darsaday wax kastaba ha ahaatee waxyeelada uu geystay Deni baa mas'uuliyadeeda qaadaya maantana waxaad ogaataa in la wadayaal oo aan meel la kala jirin gobollo isku dhow guryo isku dhow belada hurdan ninkii kiciyay waa Deni isagaana lagala xisaabtamayaa aawa laga bilaabana waa waxaad ka heshaa halkan waxaan ka soo jeedinaynaa oo shirkan ku qabanaynaa madaxweyne Deni weerarka uu ku qaaday Highland waa mid uu uga bartay kii Boosaaso ka dhacay oo aan cidina oran maxaa u samaysay kii oo kale buu ku qaaday magaalada Dhahar la yiraahdo wixii ka dhacay khasaare naf iyo maal waxa ogaataan inuu isagu dusha ku qaadanayo sababtu tahay waxa weeye waxba laga bartaayo kii Boosaasood buu ka qaatay inuu saa magaalo nabada weeraro naf iyo maal wixii jooga uu xabad mariyo
marka mas'uuliyadda waxa qaadanaya deni maamulka deni baa qaadanaya annaguna cuqaashii iyo odayaashii baanu nahay waxaanu u sheegaynaa dadweynaha iyo beesha caalamkaba inuu ninkaasi nin yacni ummadda xansuuq kula jira yahay wax laga haystaan aysan jirin magaalo nabada uu weeraray dadkiina haddeer xabaddu ay ku socoto dhamasho iyo dhaawac labaduba ay leeyihiin intaasaan u sheegaynaa lama saadaali kara arrintaas sida ay ku dambayn doonto laakiin waxaa la arkayaa wax laga mudnaa inay dhaceen dadkii shalay safka dagaalka ku wada jiray ee hal aragti u halgamayay ee iswalaashanayay iyagii in maanta ay isku jeesteen isla markaana qorodable la dhex dhigay waa runtii wax aad looga xumaado cid kasta oo samaha jecel wanaagna rabtana waxay ku baaqaysaa in walaaluhu hubka dhigaan wada hadlaan arrintaana si hoose loo xalliyo arrintan ayaa ka dhalatay sida xaqiiqda ah ee la wada ogyahay maamulka laascaanood laga dhisayo ee SSC Khaatuma kaasi oo dhamaystirkiisa hadda halka loo joogo maadaama rag matalaya gobolkan iyo Sanaag ay halka joogaan suldaankii iyo dadkii waaweynaa ee yani beeshan ama beelaha aan magaca ku lahaana ay ka soo horjeesteen haddaba adiga maxay kula tahay wada aragtidaada reeb fariinta meel dheer gaarsii halkana ku soo biirsi aad u hesho xogaha degdega update-ka ugu dambeeya iyo xog kasta oo ku soo kororta xaaladda dahar iyo guud ahaan gobolka halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal